وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو ورئيس الله سبحانه وتعالى يا وحا أوليه مهذا بلارن مهذا أنا هل كان كسوكو بكرين وحا فرحد إن نعاول كان يسوون من إنه كسر دويننا قبل ولا شيء عمرتي نوقت مد مقالة فرجينيا نوقت مد ولا شيء عنب على جيله عنب على جيله وحي أترتمس ومشرح أترتمس حلبان دولة الفدرال كصوماليا marka insha Allah dhamaantiin waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan walaashay canab waxaan ku leeyahay welcome to Minnesota programkeena waa iska bilaabanayna insha Allah waxaan ku bilaabaynaa ayadaha quraanka iyo wacyi waxaana noo soo jeedinaya walaalkay sheekheega Sheekh Tawakkal Ismaaciil Sheekh Sado أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا إن شاء الله تعالى مدام دad muslimiin inahum meel isugu nimid waxa ugu horeeya la isfarayo oo qof walba inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la xisaabtamayo nolosha adduunyadana ay gaaban tahay oo wax ku xisaabtamayo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortagiisa iyo mas'uuliyadda wax walba oo ka saaran ummadda waxyaabaha ugu waaweyn la weydiinayna way ka mid tahay oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati qof kisto idin kamida waa mas'uul weeye مسؤول والبنا وحي للراعية ولا ويدينيا community gaani markay mas'uuliyadoodii gabeen ayaa burburka iyo dhibaatada ku yimid qodobkaas weeye gabdhaha canaantoodu waqti badan bay iga qaadatay saan u waday loomana roona isumana roona hadalkaas uu bixiyo looma roono wax loo raadin mayo mujtamaca qayb weyn oo dhibaatada iyo culeysku ku dhacay kamid yihiin waxna laga siiyo wax la raadsanayo isuma roono markay iyaguna mid kamid ah soo sharaxdana isuma soo buuxiyaan oo isuma yimaadaan aaw xaflad rabageed iyo xaflad xildhibaan nin kala duwan imaan lahaa ma qaande ma gabdhuhu haday ragdooyin ay yimaadaan ana wiilal haye ma garanayo marka waxa gabdhahana habeenkeeda looga tago habeenka ragga uu yimaadana loo soo buuxiyo horta waa cilad idin haysata reemin soo khaasatan ka guud ahaan gabdhaho dhan mujtamacan barbaad ka tiin
dhibaatada ugu badan haddii gudaha la yiraahdo hooyada agoonta ah, hooyada dhibaatada haysata, hooyada carruurta looga tegay, hooyada iskuul la'aanta ah, waxa ay haysato waa hooyo weeye. waxa danqashada u badan ee u danqanaya ama qaylinaya ama ordaya social media ama wax aruurinaya waa hooyo weeye. qurbaha haddaynu nimidna waxa weeye waxa masaajid hoos ordaya iyo wax carruur sii wada iyo wax carruur ay ka dhiban yihiin intaba waxa weeye waa hooyo weeye. laga yaabaa iyagoo iska dhiban oo kuwa aanu jaal sabood halkan kaga xukunno cararayo hadda xilalkaaya xagga garanaynaa halkaana ka cararay islaantii carruurtii ka tegey. marka ma rabno qof mas-uuliyaddiisa gabay inuu mas-uuliyad kale noo qabto ummad kale noo hogaamiyo. horta taa waa xaqiiqda weeye. waa marka saddexaade gabdhuhu ragga waa ka qaniyo yar yihiin, hadday wax cunayaan hataa wax weyn ma cunaan, haddii hataa ay dhacdo laakiin waa ka danqasho badan yihiin. mas-uuliyadda inta gabdhood ee hadda xilka hayay si walba ha u qayliyaan, si walba ha u danqadaan, laakiin wax unbaa looga aayaya mas-uuliyadda. waxaan rabnaa marka inaad ogaataan inaad cid wax idin siinaysa ma jirto. sideedaba siyaasadda layskuma casuumo, cid wax kula soo raadsanaysa oo inta kulliyaa kaalayo qaado xukunka qabo ku oranaysa ma jiro. laakiin waxay u baahan tahay qofka mas-uulka soo istaago, garab buu u baahan yahay, taageeruu u baahan yahay, qayluu u baahan yahay. siyaasadda waxa la isugu taageerana waa taas weeye. waxa intaa dheer waxaad wax ku heli kartaan waxa weeye in laga gudbo qaabka odayaasha wax u qaybinayaan oo ninka aqoonta leh aqoontiisa uu ku soo baxo, codkiisa ku soo baxo. gabadha wax soo baratay waxbarashadeeda iyo aqoonteeda lagu doorto. laakiin inta oday iyo 4.5 wax lagu soo qaybinayo waa adagtahay miiskaasaa u dhadhamisaan, dhibkii culayskana waa idin saarnaanaya. waxaan rabnaa markaa qofka sidaasoo kale ama wax bartay ama aqoonta leh ama soo qadimay oo xilka inuu xaq u leeyahay bannaanku istaagay, waajib saaran weeye gabar walba iyo qof walba oo waxa weeye mas-uuliyaddaasi og, garashanayo aqoon u leh in la garab istaago. canimna gabdhahaasay ka mid tahay, ma badna gabdhaha wax raadiya. inta hadda coronaviruska nala ka qaaday waxaa noo yimid ilaa 10 ayaa noo yimid, waad ogtihiin oo waxa weeye xildoon ah. gabdhuhu 2 keliyaanu ka aragnay inta hadda xildoonka iyo gabar habeen dhexdaas, saddexdaasaan ka haynaa. dhowr iyo 10 kaloo ragna waa noo yimaadeen, haddana kuwa badan waa soo socdaan. marka waxaan ka rabnaa waxa weeye qofka mas-uulka markuu noo yimaado, weliba martida markuu noo yimaado, martinimuu nagu leeyahay, xaq soor buu nagu leeyahay, casuumaad buu nagu leeyahay, taageero iyo garab istaag buu nagu leeyahay. intana way mudan tahay gabadha, weliba gabadh dhalinyaro ah oo waxa weeye aqoonteeda iyo kartideeda haddii aadan gabdhaha aydan taageerinna midda dambe han siyaasadeed lehna waxa weeye bannaankay fadhiisanaysaa. taa waa xaqiiqo weeye. waa in qof meesha idin tijaabiyo, waa in qof meesha idin joogo, waa in qof meesha idin ololaynayo. annagoo kala soocaynin maanta mujtamaca rag iyo dumar, laakiin dhibaatada Soomaaliya haysata maanta waxa weeye dadka taageeran ka mid ah. weliba waxaad dhihi jirteen culimmadu waxbay diidan yihiin, annagoo waa ogolnahay gabdhahu inay xool qabtaan. waa marka saddexaad ee odayaasha gudaha jooga kolley waxa weeye cid unbaa ku qabsanaysa waddanka taageeradiisa iyo dhaqaalihiisa. waxa weeye waa noo soo wacaysa ogta, laakiin canab hadday booska noo tagto wax badan ceelalna waa idin qodaynaa, wax badanna waa idin siinaynaa. marka waa mudantiin in canab la taageero. anoo ku hadlaya marka magaca culimmada, magaca gobolka, odayaashoodii iyo akhyaartoodii culimmadoodii ubax waa endorse garaynay. annagoo reer Minnesota waa naga baxday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أدبر مهتصنت هاي هذا القيمة ولو باهي هاي وايه رنتي وحواي دمر كان عاو حندري من ناظر embarrassing يا إن وحوا باهنا هاي إن بدنا مركا أنا وكلين أنا نسلو جوجنو حانو اسكت عنا إننا نستأجرين إن محي أن عد كان أنا للسنين تاني بس أنتي عود قال من إنه نجمع قيم هاي إن لكن وحا مرخاتي كنا قلنا يسرونتي مركا أنا وأنا استأجرنا أنا ويسوم مش حرنا مركي هذا السيد شيء وشيء جايو كلا ضد نمن أساسه كلا أي ميدان سلامها قبصارها تقولنا عليه قدر دريان فرها كبتين ما قرنا يا رنتاس ماشي كسعته إما لها إن شاء الله وكذا كجود بينا إن وحوير إن شاء الله هذانا ولالكي عبد علي بالقاس حكمة على عوال كلا لو باية هاي قامض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورواد السلام يا دمانتين وحنا عبد السلام يا وسود وين يا ولا شيء نادرتي نصاب وقتي
dee shiikhi baa hadlado shiikh lagama daba hadlo mar dee culimada hadasho anu culimada waa ka dambeeya marka dee gabadha aan soo dhaweyno waxay u baahan tahay support moral support iyo in la iska rab taago qofka doonayo inuu kursi siyaasadeed u ordo waatan Soomaaliya wax badan buu u baahan yahay waxaan jeclahay in la taageero oo la iska rab taago oo waliba dumarku dawad shiikh sheegay dumarku waa maqayn baa leeyahay marka iyagu tartamayaan ordayaan marka waxaan lahaa gabdhaha Soomaaliyeedna tay idinku hadda taageer rag iyo dumarku way saayaan always marka raggu dhinac bay taagan yihiin oo raggu bay taageeraan boqolkiiba boqol dumarku laakiin wali halka way ka maqaynaysaa culimada sheegayso waana iska muuqataa laakiin muhiimaddu waxa weeye dadku inta waa intii xilkas ka hayda timi soo ajiibay gabadhu waxa weeyaan way inoo timi way inoo soo booqatay waana martide inagu siyaasadda marka dhinac kale laga eegaba marti ahaan bay inoogu timi magaaladeena soo booqatay way inoo timi waxay xaq inoogu leedahay soo dhaweyn iyo furfurnaan iyo inaynu insha Allah billahi kariim noqono dad wanaagsan oo soo dhaweeyo oo hambaliyeeya marka waxaan ku leeyahay hambaliyo inaad ku soo dhawow magaalada Minneapolis welcome assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baa u mahadsantahay Cabdi Cali Bulqaas haddana waxaan u yeerayaa walaalkay Cabdirashiid Macalin Faarax ala rasuulillah runtii aad baan u xiiseynaya gabadha inaan soo dhaweeyo Canab Cali Geele laakiin inaan ka hadlo xigmad badan kuma jirin sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal qof yareeyna kama wada tagin qof badiyana ma wada oran marka sheekha hadlay muhiimaduna waxay oo ahayd gabadha in runtii ay noo timid marti noo tahay si sharaf leh loogu soo dhaweeyo gobolka runtii qof firfircoon oo nolosheeda inta badan ku bixisay arrimaha socialka weeye mujtamaceenu inta badan uma diyaarsana waxaad moodaa inay buur adag fuulayso waayo mujtamaceena dhowr qodob oo ay caan ku yihiin ma saacidayso kow ummadeena waxa ay kala xanaaqaan waa cadaaladda weeye oo cadaaladda mar kasta ma jecla oo ummad ku beesgaraysan qabaa'il oo reer baadiye ah xoolo dhaqato ah xoolo dhaqatada waxaa la yidhaahdaa waa wahaabun nahaabun waa qof wax kastoo arkana dhaca wixii soo galana lumiya weeye qofka reer baadiyaha ah way fiicnaan lahayd in la siiyo gabdhaha waqti oo chance la siiyo laakiin dhaqanka baadiyuhu uma ogola reer galbeedka baa xoogaa hadda waxay yidhahdeen kootada ha la siiyo boqolkiiba 30 waxaa laga yaabaa dad badan oo xataa diin sheeganaya inay ka dagaalamaan wax kalena ma aha haddaynu diin islaam oo saxa haysan lahayn maanta meesha aynu joogno ma aynan joognayn maalin dhaweed baa waxaan aad ula yaabay niman culimaa oo yidhi gabdhaha gudniinka fircooniga in la gudo oo la mamnuuco waa ka soo horjeednaa macnaa waxaad garan kartaa mustawaha ummaddeenu ay marayso oo dadkooda culimada ahaa iyo wixii kale ay marayaan markay ka hadlayaan gabadh la xabaal nololiyey waa xabaal nololis gabadha saa loo geliyo sababtoo ah xubinta taranka ee ragga haddii la gooyo magta la bixiyaa gabadha haddii la gooyana magteeda la bixiyo weeye marka ninka kule ummaddii anaaba u qiyaada ah u caalim ah u aqoon-yahana markuu yidhaahdo gaaladaa la timid oo gaaladu sadaqa wahuwa kaduub rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaytaanku markuu yidhi abu hureyra ayad kursiga akhriso habeenkii adoo markaa seexanaysid ha ka seexan u sheegay buu yidhi shaydaan buu ahaa laakiin run buu kuu sheegay kootada la siiyey reer galbeedku waxaan ka jeclaan lahaa inay boqolkiiba 50 gabdhaha siiyaan sababtoo ah ragga meesha aadaa way u shaqo tagaan halkanay shaqo ka waayaan baar credit ka noqdaan xaggaasay tagaan danna markaa dilaalkaasaa la galaa meeshan atamanaa in ummadda soomaaliyeed haba noqoto 100 sano soo socota inay noqdaan dad caadiya oo insaanka ka mid ah ma filayo mubaalaqana igama ah haddaan idhaahdo waa dadka adduunka ugu xun weeye Soomaalidu absolutely sababtoo ah qofka insaanka ah wuxuu insaan ku yahay laba arrin kow qofku inuu adduunka wax ku soo kordhiyo qof waxa uu cunayo wuxuu cabayo wuxuu labisanayo wuxuu ku hadlayo meeshuu seexanayo qof asaagiisa soo sameeyay una hadlaya marka taas waa qodob
qodobka labaadna waxaa weeye ummadaha kale hadda Kenya geeriyaamadii oo qaban bay ku imanayaan way ku shaqaynayaan in yaroo ugaalooda cunayaan way seexanayaan cid ma dhibayaan laa darara walaa diraar laakiin qofka Soomaaliga inaad ka baxsatid way adag tahay qodobka labaadna waxaa weeye cilmiga weeye oo ilaahay mujtamaca markuu abuuray wuxuu ku sharfay oo lagu kala tegay waa cilmiga ilaahay insaanka average ahaan wuxuu siiyey aqoon isku mid ah iyo garasho isku mid ah laakiin waxa kala fadila maxay yihiin cilmiga kala fadila walidaalika waxaan u marayaa gabadh kasta oo Soomaaliyeed waxaa haysata ayaan dara haysata day aqoon leedahay karti leedahay garasho leedahay inay wax qabato ay rabto bay'adda ay rabto inay wax ka qabato cadow ay ku tahay wal insaanu cadown lima juhil insaanku cadow wuxuu u yahay waxa uusan aqoon waxa kaloo la yiraahdaa qofka jaahilka wuxuu naftiisa yeelaa waxaan cadowga yeeli karin ma raba inaan sii dheereeyo laakiin bariga hore anigu waxaan ahaa dadkii Soomaaliya wax ku soo bartay rajada badan ka qabay qaran Soomaaliyeed iyo geeska Afrika inaan wax ka noqono oo dal noqono laakiin marka research fara badan sameeyay iyo baaritaan waxaan hoosta ka xariiqay in aynaan qaran noqon karin inagu aad baan u akhriyo culimada waaweyn adduunka wax ka qortay oo ugu faraha badnaa مثلا cali wardi oo kale ilaa iyo 30 kitaab uu leeyahay markuu ka hadlayo marka shucuubta qabliga qaabka qabiilka u dhisan cashaa'irta u dhisan waxa kamid ah dadka soo qaatay salax intii carabta oo kale carabtu waxay u qaybsataa saddex qaybood qolada khaliijiyiinta ee mas'aagalada cuni jiray qaaqaawan risaalada markii loo soo diray dadka ugu liitay ahaayeen ugu daciifsan dad caadifiyiin ah oo aan macno badan lahayn oo u kala safan Ruum iyo Furs diintaas ay Ilaahay ku sharfay diintay markii Ilaahay ku sharfay oo rasuulku geeriyo calayhi salaatu wasalaam oo ay fatuuxaad ku bateen dadkii jasiiratul arab joogay waxay aadeen xagga iyo Baghdad iyo Sham iyo waxay aadeen markaas dhinacan loo yaqaano North Africa umawiyiintu ay galeen Morocco Algeria Tunisia illa Libya illa Sudan intaas waxa la isku dhahdaa Maghrib al-Arab dadyooga khaliijiyiinta ah noloshooda dawlad kama hirgelin wixii ka dambeeyay khilafaa raashidiinta sababtuna waxa weeye waa dad reer baadiya oo dhaqankooda ku salaysan yahay baadiyaha marka haddii ummadu dhaqan xoolo dhaqato ay ku salaysan tahay dawlad ma noqon karto sida aanay u kulmin dabka iyo biyaha maalinka iyo habeenku baan ummad baadiyo noloshooda ku dhisan tahay si aanay systemna u dhisan karin dawladna u noqon karin waxa kamid ah shacabka Ciraaq oo kale ilaa Babylonian ilaa hadda 3,000 oo sano dheeraad weeye ilaa maanta dawlad ma noqonayaan waayo waa cashaa'ir weeye qabaa'ilay kala fadhiyaan waligood dawlad ma noqonayaan soo ujeedada hadalka aan uga dan lahaa waxaa weeye akhafu dararayn war bal at least meeshii waraabayaal baa jooga qaran looma socdo gabdhaha haddii la empower garayn lahaa maybe at least waxba kala xari lahaa laakiin taana lama ogolo dhaqanka diidaya laakiin runtii waxaan aad u tamaniyi lahaa in gabdho badan ay soo baxaan oo cidisma azuumayse at least lacagta ragga ka korto in intay ragga ka joogaan oo lacagahan ay siinayaan ka daayaan laftooda iyaga la khalday waayo waxa lagu khalday qabiil bal lagu khalday sheekhu wuxuu leeyahay markan yimaado way soo ordayaan way wada imanayaan lacagta furayaan maxay u furayaan sababtoo waxay leeyihiin ninkan waa qabiilkayga qabiil dawlad ma dhiso bal waxaan kaga baxayaa Soomaaliya in ay khayraadkan iyo badan iyo waxan ay haysato in ay ka faa'iideysto xataa marka qaarkood waxaan ku fikiraa macquul mata in Ethiopia lagu daro waxa laga yaabaa dad fara badan la yaabaan waa Ethiopia loogu darayaa Soomaaliya sababtoo ah dhulka Ilaahay baa iskale Ilaahay wuxuu dhulka ugu talagalay in laga faa'iideysto dahabkii baa jiifa shidaalkii baa jiifa bad iyo berri waxaan kaga baxayaa UN2 buug waxa jira annagii adduunka ma qeena akhrideen annagii adduunka waa wax baahan waqti dheer laga hadlo buugaasi 1980 la qoray baa UN2 ka hadashay Soomaaliya waxa laga hadlay 3 meelood waxa la yiri Soomaaliya khayraadka ku jira baa la qiimeeyay waxa la Soomaaliya haddii xoolaha kaliya ay dhaqdaan oo aysan wax kala samaysan bas 54 milyan oo madax oo xoolaha bay leeyihiin haddii 54 milyan oo madax sida adduunka xoolaha looga dhaqdo ay u dhaqdaan waxay noqon doonaan wadamada adduunka deeqda ugu faraha badan bixiya waa laga yimid
waxaa la haddii xoolaha dhan la iska daayo oo la aada badda marka waxay soo saareen inta day ka soo bixi karta khayraadka kalluunka ee Soomaaliya waxaa lagu dhuftay bisha iyo sanadka waxaa soo baxday lacag ka badan lacagta Saudi Arabia shidaalka dibadda u dhoofiyo oo kaliya xilliga bariisamaadka ah waxay noqon lahayd wadamada UN-ta iyo wadamada gaasina adduunka lacagta looga qaaday raashinka qodobka saddexaad wuxuu ahaa beeraha kaliya Soomaaliya waxay u baahneed 8 milyan oo hektar in la beero ayay awoodday haddii la beeri lahaa half ka mid ah ama 1/3 la beeri lahaa Soomaalida marka ay FAO adduunka cunto u raadinayso Soomaaliya kaliya ka qaadi lahaydba intaas oo jirtay ba intaynu baabi'inay baynu waxaynu haynaa maanta inaan dawarsano wax kale ma hayno inaan dawarsano dawladna waliba ma noqon doono waxaynan u noqonayn qabiil dawlad ku dhisan marnaba ma dhismi karto marka walaalayaal yaanayda ku dheerayn waxaan uga jeedaa walaashan inaan caawino at least aqafo darareen at least inay wuxuun some kind of contribution inay ku bin karto in aynu ku caawino kale xaqii baa loo fadhiyaayo hadday oranayaan qabiilkiga gabar lama siinayo waa caqabad weyn weeye meeshii marka aad tagtaa la oranaya no qabiilkiga gabar lama siinayo gabadha ka xusaar badan ka sharaf badan ka qiimo badan because why markii hore gabdhaha loo nabcaa wiilasha loo jeclaa waa dhaqan baadiya salku ku haya waa dhaqanka jasiiratul carab weeye maxay tahay wiilku waa inuu waxna dilo waxna soo dhaco laakiin gabadhu way fakaraysaa way naxaysaa way damqanaysaa dardaaran dadka reer Puntland nabadda dalkiiniyo dawladda aad leediin u dadaala weligiin waa iga dardaaran dadka yaga Puntland nabadda dalkiiniyo dawladda aad leediin u dadaala weligiin waa walaalo waa uliyo diirkii dadku waa walaalo waa uliyo diirkii duul wada dhasho derisiyo xigtaayo deegaanka wadaagay dabka dhiga dadkaygo dalka dhisa dadkayago ka dhiga dadkaygo dalka dhisa dadkayago 30 sano dagaalkii Soomaali dirirtii sokayuu isdooxe dalkeennii kuwiinana ku danqaata weligii dawladda cado danaha u adeegta nabad lagu dekeeyaan dareenlii ku joognaa dawladda cado danaha u adeegta nabad lagu dekeeyaan dareenlii ku joognaa dardaaran dadka reer Puntland maangaab daciifo qabiil dabada ku hayan aw dagaalin weliga waa iga dardaaran dadka reer Puntland maangaab daciifo qabiil dabada ku hayan aw dagaalin weliga
waxaa u mudano ugu darajo roono dad waxa ugu mudano ugu darajo roono mas-uul daacado diintana yaqaano dadku uu siiyahay dabka dhiga dadkaygo dalka dhisa dadkayago dabka dhiga dadkaygo dalka dhisa dadkayago dumarkiiyo ciyaalkii duqaydiyo waxgaradkii dibadaha u carare ku dagaagay dunidana ku danqaata weligii dowlad daacado danaha u adeegto nabad lagu dekeeyaan daareen li'i ku joognaa dowlad daacado danaha u adeegto nabad lagu dekeeyaan daareen li'i ku joognaa dowlad daacado danaha u adeegto ku hadlay walaalkay Cabdirashiid basically hadalkiisa haddaan soo samabgareeyo ama isku soo duuduubo anoo weligii Soomaaliya tigina ayaan dhaw tagay markaan tagay waxyaalo badan madaxay ka guuxayay hadalka uu ku hadlay exactly waxa moodaa filin camal inaan u fiirsanayo wixii aan soo arkay dadka yani Soomaaliga jooga dumarka kale marka la fiiriyo waad aragteen qondo kasto la qaybsanayo xataa marka la qaybinayo oo dumarka qondada la rabo in la keeno miiska waxa fadhiyo waa nin ku diidan adiga shalay ku diidanaa qondadaada miyuu u dagaalamaya meeshii marka laga soo baxo nin baa ku soo dagaalamay asagiya wuxuu ku yiri qondadaada waan u dagaalamayaa basically marka wixii la isku soo duubad waxa waaye markay noqoto arrimaha dumarka dhibaatooyinka ugu waaweyn ama ha noqoto dhinaca cilmiga ha noqoto aqoonta runtii dumarka ayaa ugu badan gabdhaha waxa arkaysaa PhD-ga marka la fiiriyo la isaga dhigo dumarka iyo ragga la isaga dhigo gabdhaha ayaa jaamacadaha ugu badan oo aqoonta ugu badan haysta laakiin markii la yiraahdo miiska la soo fariisto oo laga hadlo dhibaatooyinka waxa waaye somehow waxba jira laakiin reality-ga waxa waaye dumarka marka la fiiriyo hadii la dhaho maanta laga hadlo issue-ga dhalinyarada ama ciyaalka hooyo ayaa ka hadli karta hadii la yiraahdo grantiga iyo housing iyo laga hadlo hooyo ka hadli karta hadii la yiraahdo caafimaad laga hadlo issue-ga caafimaadka laga hadlo hooyo ka hadli karta laakiin miiski boolisiyada lagu dajinayo ama shuruucda lagu dajinaayay waxa fadhinaya nin ayaa fadhiyo oo dhiibay codkaas taa markuu waxay ku tusaysaa inay baahi weyn jirto gabadhan walaashay booska u tartamaysan uu yahay boos muhiim ah kaliya aysan dumarka muhiim u aysan u ahayn ee rag iyo dumar labadaba ay muhiim u tahay marka runtii waxa waaye arin u baahan hidadiilo iyo dhiirigelin u baahan walaashayna runtii aad ayaan ugu dhiirigelinayaa hawshan soo istaagtay first of all ilaahay haday ay ku tahay khayr ku fududeeyo haday si khayr ku ahayna ilaahay ka xijaabo hana igu dhin sidii ninkii oran jiray haday si khayr ahayn ilaahay wuu weydiino khayr iga dhigo laakiin igu duceeb haash marka insha Allah waxaan haddana aan u yeerayaa walaalkay xiirey halkaas ka soo diyaari waxaan u maleynayaa xoogaas baa u jiiftaan sacab male mashxarad male buraamur male miyaa idin buraamurade maxaa sameeya codka waa uu igu waashay miyaan idin buraamurade hobole hadda wadaha ay xiirey وما سنتا كوثر بسم الله الرحمن الرحيم aad uma santiin dadweynaha ka soo qayb galay anab cali geelle xafladeedan xildhibaanka insha Allah ay ku doonayso oo ay martida ugu tahay magaalada Minneapolis waxaan dhihi lahaa caawa habeen kulay farxad leh in ay gaadhay gabadh Soomaaliyeed inay tiraahdo waa ordaya inay tiraahdo ordaya horta waxay ka timaadaa in mal a'maal biniyad niyaday ka timaadaa عماشة ودن نيادة كبلابتا قف كبنيادن كمركون نيستو أيو وحى جاري كره هدوسن نيسن ولقيس ما جاري كره سمر قررت إنه نيادي لي ما ده كتب فعل كيوف وليو إنه دونه مركز دونيستي دي ما أنت وحكم إذا إنه حتى أنت نوقت مية وتراضو حلبة عن سعودية يقول تاجرة تسوى قول وين أما قوانا يسوق جرتي وعنا نديه لها مرنبا هاوجد حين إن dib uga dhacdo go'aankaaga aa gaadhay ilaa aad ka gaadho himiladaadaas insha Allah ta'ala himiladu waa shay fiican maxaa yeelay qofku bini aadamku hadduu himilo lahayn
ama hiigsi uusan lahayn dadnimadiisa waxba ka dhiman maxaa dhacay yeelay qofka bini aadamku waa inuu himilo ama yeeshaa hiigsi mar walba noloshiisa uu isku dayaa meeshuu shalay joogay maalinta meel ka fiican inuu joogo that's why hadda Cabdirashiid uu ka hadlayay waxay ahayd inuu dhahay Soomaaliya dawlad ma noqonayso macnaheedu waxa weeyaan waa guubaaba ee ma ahayn macnaha niyad jab waxay ka waday meesha maanta la joogo ha laga dheeraado hana laga sii socdo hala noqdo himilada hala yeesho qofka bini aadamku waa inuu himilo yeeshaa insha Allah soo himiladaas aan leedahay waa kugu hambalyeynayna waana kugu soo dhaweynaynaa haddaan reernaan Minneapolis nahay waana guul weyn oo aad xagga dumarka iyo dadka Soomaaliyeed u horseedaysid sidaan ognahay qof ahaan waa qof taariikh adag leh go'aan adag leh عزمي في عن لقفتني أو إن أي تاهي قف هدي أي تكتو إن شاء الله حلبان نقطه وشقين دون تصومالي نمو ده مسلم نمو يولا نمو قف والبوغو شقين يسو وأنا إن شاء الله نقول دونين قف إحانا يسا قفنا أما كلا جعلي سنة يسا أما يولد إن شاء الله يولك أي ربط إني صومالي يقارسي سو حكد ريمي كرتا قوان كده إيمان تقادي إنو يهي ميتكو صلي سنين دادك وحقبت إيه نفتي ده هين هذا النفط هذا تقولي كذا جوجله مركو حدي لها في مينيابوليس ما دام عن مرتي وقلنا هاي وحيالها وقوين وقبان كنا معي تاي ما مش حرات مسوا حيالها كله وحنو ملاينا يا واحد بدن أو بانته وحكم ذا إن أنجاب كوفرنا نقاله وقرنا تاجرنا مرالي أن دبجوجنا إلا إن شاء الله أنت كجارسي من الذي ذا أن دبجوجنا أن دبصعنا وعندنا walaasheen aan hiliya hooda daba joogno taas ayaan u malaynayaa inay inoo ku timi taageeradan ay tahay inay iyada inaka matali doonto Soomaaliya codkeena ama waxyaalaha uga baahanayna qof walba uu yiraahdo Soomaaliya waxaan jeclahay ka bedel mustaqbalka go'aane haddii aan yiraahdo قاسمي يقبضو ورها جاي وبعلى دحمرا يقولوا للتجا بندر قاسمي يقبضو ورها جاي وبعلى دحمرا يقولوا للتجا يا كابوكتو شبوح صدو حبتا بلاران دبا شبيري يا كابوكتو شبوح صدو حبتا بلاران دبا شبيري ودعاقا هكري يا صوبرتو تكدا بلان دونو قبحو بدايا دولورا دعاقا هكيلي يا صوبرتو دكتا بيلان دونو قبحو بدايا دولمارا يا إسبانتاو فريقوكو نستو بيلان توجعلا بيدو قبسو بوسا سويكو ديغا Espanto, periakugu nasto, bilantu jala, beidu gadiso, bosa soy kudega.
bandar qaasimeeya ku booqdow bidicdaada iyo baardoog dhex mara sidii beri samaal bandar qaasimeeya ku booqdow bidicdaada iyo baardoog dhex mara sidii beri samaal fakharada camiran beeye iyo koox bulshirada dhexta baayaca haddaba fakharada camiran beeye iyo koox bulshirada dhexta baayaca haddaba badacagaha geli yaa soo barto dekadaada bilan doon uga baxo badayaa dulmara badacagaha geli yaa soo barto dekadaada bilan doon uga baxo badayaa dulmara isbaantao barya kugu nasto bilantuu jeclaa bayd uga dhiso boosasoy ku dega isbaantao barya kugu nasto bilantuu jeclaa bayd uga dhiso boosasoy ku dega waxaa waaye ma u baahni inaan sharaxaad badan ka bixiyo dumarka marka laga hadlo dhibka ay maraan ama ha noqoto ilmaha kuwa ka mara ama ha noqoto domestic abuse-ka ama ha noqoto Hennepin County ee la shaqeysaa issueyada ugu badan oo state-keena ka dhacana dadka ugu faraha dhuudhuuban oo ka shaqeeya ay kamid tahay insha Allah kalimadeeda ayaan rabaa inay iyadu codka dumarka Soomaaliyeed ku hadlaysa ay ka soo dhiibato insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا ما أنت مركان كو حفلة داوسو السعودية وحنا سبها I was very happy أبى وفرح سنة لكن أنا سارين رجع أنا سارين أو دمر كمان صورة ساراي أبى والله disappointed وأهي لكن إلهي سبحانه وتعالى وحويان وحو قرأ باقرا وحو إلهي أقرأ باقفك بنا آدم كنا أمرا لكن أنت نوصى تمنا وانصور دوينا وحير هداد بيستان وفي عنته ودماركتي أمستان نبي يرهدان بوقنا هدان ببتادي الله ذهي مركا أدباد مهدسنتين أنت ماركت سوء أجيبتي إذا ما أنت سبتي أيتهاي وأنا أعذر دارا يا دادك مقنصوبتو حفلة بدن درادد أراسية بدن وحتى لفتقوا لفاميلي إليه ناجرة وأنا قد هانا هو وهي أيضا أنت سوى عذر دارا لكن وحنبيه لها وحويان هذا البدن وحليرهان مبعشو قبل ما أنت أسو استاكتي إن الصومالية وحكا نقطو أن وذا أبنى الصومالية وحيتهاي وحنبيكرا وقبر هيروا كدايشنا مدن Soomaaliya waa aragteen Allah u naxariisto hodanaal waa aragteen saada cali warsan waa aragteen dumar badan oo naga baxay jira laakiin nin walba meeshu ku dhimanayo Ilaahay waa og ma fahanteen Ilaahay waxa uu rajaynayaa canib inuu maaragtay la kulmiyo khayrka la kulmiyo guushana la kulmiyo hooyo weligeed yaa lahayd haday xil qabato iyo haday guri joogtaba waa tii wax tarta waxay nooga baahan tahay inaan intaan qaadano jeebkeena gadaal inta ugu noqono antaa kuleyno ileen aynaga noo taabaqaadaysaa wadankii bay aadaysaa inay wax naga qabato waxaa jira wadankii dad aan hadli karin waxna soo saaran karin waxay u baahan yihiin qof uu hadlo waxna u soo saara aniga haddaan iska qaado maaragtay for example isaga soo qaado anu dawladdan ka shaqeeyaa badanaa dadka xuquuqdooda aan dhacsan karin waxna soo saaran karin dhibka ay ku jiraan aan maaragtay ka bixi karin baan u doodaa advocate u ahay marka sidoo kale iyadana
qof dhiban oo de hadday gaajo noqoto hadday guri la-aan noqoto sida anigaba halkaan hadday gaajo noqoto hadday bahdil noqoto hadday maaragtay cunsurinimo noqoto haddii maaragtay dhibaato hayso waxaan ka shaqeeyo 19 sano oo halkaa u fadhiyo waa waxaas marka abaayo waxay go'aan ku gaartay inay riski u qaadato nafteeda iyo nolosheeda inay dadka naga maqan ay wax u soo maaragtay dhiciso marka idinkuna inta qaadataan jaabka gadaal ugu noqdo reer Minnesota waxa ku taakuleysaan taakuleeya waana maaragtay inii mahad celinayaa abaayana waxaan leeyahay ilaahay ha kula garab galo ma fahanteen waxa weeye one thing u qabatid qof miskiin ah buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kugu taraa taasna ogow weligaana qof wax xun maaragtay de Soomaaliya waa aragtay hadda isdhahayo qof ha ku taageerin qabiil talan ku siinaya hana ku taageerin inaa maaragtay qof adiga raba inuu maaragtay nolosha qof kale ka rido aad wax u qabatid intaas tala kugu darsanaya horeyna u soco salaamu calaykum waraxmatullaah aniga wax walba sameeyo mashxarada waa baran waaye kaftan weeye intaas insha Allah waxaan u yeerayaa hadda walaashii way mahadsan tahay runtii dareen ay dareemayso waa baahida dumarka Soomaaliyeed ay qabaan ama gudaha joogan ama banaanka joogan walaal waa ku mahadsan tahay talada wanaagsaneed walaashiis anaguna daba qaadanayna waxaan haddana u yeerayaa Ciise Maxamuud oo ka yimid Puntland right now oo ku hadlaya codka jaaliyada Puntland insha Allah dhalinyarada u baahanahay Soomaha السلام عليكم حمود أنا حواد دالنتي السلام عليكم waxaan kulana soo dhawow mar labaad mar saddexaad baa soo dhawow أنا ku hadlayaa magaca guddiga jaaliyada xafiiska jaaliyada Puntland waxaan si gooniya mar labaad mar saddexaad ku taageerinaa waan ku soo dhaweynaynaa rag waxa jira dumarka ka soo horjeeda waxay dhahaan niyo ma naga deysaan dumarka xafiiska ku soo wadaan ama kuraastan ku soo wadaan baarlamaanka waxa ka xumaada laakiin waxaan qabaa dumarka in la siiyo qaybtooda iyo in la siiyo waxa ay awoodaan waayo iyaga wax bedeli kara waa ognahay raggu de ilaa 1991 bi meesha fadhiyeen hadii wax bedelayaan xana ilaa hadda ma soo socdaan marka waxaan leeyahay dabcan dadkana daawaan waxaan dhihi doonaa dumarku u dhiiba Chinese-kooda bal in wax bedelaan aan aragno waqtigooda siiya walaasha xastin waa walaasha qofka xastisa ama xaaskaaga ama hooyada kale waaye marka si xaqeeda ay ku leedahay una ogolo waxay jeceshahay in higsto ama golkeeda aba soo dhawo mar labaad mar saddexaad ba ku faraxsanaana noo timaado insha Allah waqtina wada qaado doonaa aad baa mahadsantiin kulligeen insha Allah ilaahay ha u fududeeyo haduu khayr u yahay haduu si khayr u hayna wax ka fiican oo ka khayr badan ha ugu bedelo laftirkaygu shiiqad baa sida loo duceeyo aqaana okay waxaan haddana u yeerayaa insha Allah Jamaal Gelabin oo rabo insha Allah walaashay inuu maxay ahayd uu soo dhaweeyo Allah Jamaal Gel waxaan la dhashay Canab marka waxaan rabaa inaan idin sheego Canab historygeeda marka in mujadaan codka maqlaysaan si fiican maqlaysaan okay so marka waxaan rabay inaan idin sheego CV-geeda sida ku soo barbaartay sida wax baratay meesha ku soo kortay waxa soo dhan before intaysan stage ka imaan Canab waxay ku dhalatay Muqdisho waxay iskoolkeeda hoose dhexe ku dhameysay Muqdisho iskoolka sare waxay ku dhameysay Boosaaso Bari gobolka Bari kadibna waxay timid Mareykanka waxbarashada maqlaysaan yeah hello okay so marka waxbarashadeeda sare waxay ku qaadatay gobolka Virginia State and Community College then jaamacad ilaa ay ka dhameysay bachelor degree bachelor science of nursing waxay ka shaqeynaysay multiple places clinics as a nursing registered nurse in Virginia marka
anigu aan ma dhihin u carar baarlamaanka ama raadso position laakiin waxay ka timid totally 100% ayada 100% ayada ka timid aniga as a brother big brother waxaan jeclahay marka inaan ku motivate gareeyo maadaama qofku uu leeyahay hamigiisa waa in maaragtay qofka maaragtay loo tixgeliyaa ama qofku siduu jecel yahay hadduu rabo dadka badanaa maaragtay qof walba wuxuu jecel yahay inuu noqdo qofaa wuxuu jecel yahay inuu sportska ciyaaro qofaa wuxuu jecel yahay inuu wadaad noqdo qofaa wuxuu jecel yahay inuu politics galo qofaa wuxuu jecel yahay inuu takhtar noqdo qof walba wuxuu jecel yahay marka waxa fiican in lagu dhiirigeliyo maadaama Canab ay decide garaysatay inay maaragtay wadankii ku noqoto ay u cararto aqalka hoose baarlamaanka aniga the only thing I can do is waxa waay maaragtay inaan ku caawiyo wixii awoodeyda ah wixii maaragtay ayada waxay samaysaa ama camalkeeda ama performancegeeda markay xagga tagto markaasaan arki doonaa marka insha Allah waxa kaliya anaga nooga habboon inaan maaragtay ku motivate garayno maadaama ay choose garaysay that route marka insha Allah ayada more faahfaahin iyo waxa ay qaban doonto iyo maaragtay meesha ay ka bilaabayso iyo sidii maaragtay wax u dhici doonaan markay ku noqoto maaragtay dhulkii hooyo ayada ayaa maaragtay noo faahfaahinaysa please welcome to Canab Ali Gele my sister والصلاة والسلام على رسول الله الله أيام ما هذا سكالي دمانتين سكاية كيني أنا جو عافيمات قبنا أنا جودن iyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Ilaahay ka sokow umada sharafta badan iyo community-ga isku duuban ee reer Mansoura ee aad iyo aad u sharafta badan ee haday family tahay haday community-ga oo dhan tahay sida ay ii soo dhaweyseen oo aad igu soo dhaweyseen Mansoura aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad intaas kadib walaalo magacaygu waxa la yiraahdaa Canab Ali Gele sida la sheegay walaalkay ayaa hore inuu sheegay CV-gayga dib ugu noqon maayo anigu waxaan u taaganahay walaalayaal waxaan ahay musharax u taagan waxaan ahay musharax xildhibaan ee u taagan dawladda federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka ayaan walaal u taaganay hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala igu guuleeyana waxaan jecelahay inaan wax ugu qabto dalkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed reasonka igu kalifay ama daruufta igu kaliftayna ma aha mid aan anigu dalkayga aan ka shaqaysanay waa mid aan ummadayda iyo dalkayga aan jecelahay wixii aan bartay aqoontayda haday tahay caafimaad iyo haday tahay bulshadaba in aan wax ugu qabto hadii Ilaahay igu guuleeyo runtiina anigoo arkay dhibaatooyinka ugu badan ee Soomaaliya markii aan tagay markaan arkay xaaladda ay runtii ay lagu sugay yahay dhulkii iyo dadkiiba sidaas ayaan isku istaagay inaan aniguna aan ahay gabar Soomaaliyeed
una qalanta jagada matalin kartana ummadda Soomaaliyeed inay wax u qabato sidaa daraadeed sidaas ayaan walaal isku soo sharaxay hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilkan igu guuleeyana waxaan qaban karaa waxyaabo badan maadaama aan caafimaadka bartay waxaan jeclahay in aan wax u qabto hooyooyinka dhalaanka yaryar ee ka yar 5 yearska waxa ka yar ee u dhimanaya maxaan ku raahdaa ay sheeg caafimaad darrada iyo nafaqa la'aanta inaan wax u qabto inaan hooyooyinka run ahaantii dhibaataysan ee dalkii jooga dalka Soomaaliyeed meel kasta ka joogeen hadii aan ku guuleysto jagadan aan u orday ee ah xildhibaannimada in aan wax ka qabto dumarka xuquuqdooda sida ay iskuulada caafimaadkooda sida u dhiig baxayaan nafaqa darrada ay ugu dhimanayaan hooyooyinka cilada ku dhalaya sidaas ayaan waxaan jeclahay inaan wax ugu qabto una soo istaago hadii Ilaahay yiraahdo waxyaabo badan aan ka bedelo sida maxaan ku raahdaa dhalinyarada yaryar ee runtii intay jaamacadaha dhameeyeen oo ay shaqo haysan inaan shaqo abuur u sameeyo oo aan shaqo la raadiyo in aan dadka masaakiinta ah ee maxaan ku raahdaa waxba haysan ee dhulkii jooga oo maxaan ku raahdaa ii sheeg curyaamiinta ah sida kuwa indhahala kuwa danta yar inaan cod u noqdo oo aan codkooda gaarsiiyo hay'adaha dawliga ah ee asaasiga ah inaan dawladda cod ugu noqdo ayaan rajaynayaa oo aan wax u qabto dadka Soomaaliyeed iyo ummadda dadka isoo doortay ee aan matali doonana aan run ahaantii sida ii doorteen oo ay ugu aamineen codkooda aan dib ugu celiyo waxaa jira xildhibaano tiro badan oo runtii intii la soo doorto si ay ka noqoto xaalad ma naqaan aanan dalkii dib dambe ugu soo jeesan oo ay wixii asaasiga ahaa ee loo baahnaa aanan dib loogu celin marka sidaad wada ogtiin gabdhuhu waa laf dhabarka inta badan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ha ka yimaadeen ama ha kala joogeen waxa ay ka fakaraan waa ummadda Soomaaliyeed sida wax ugu qaban lahaayeen oo dalka ay u dhisi lahaayeen iyo dadkooda marka aniguna waxaan ka mid noqon doonaa insha Allah gabdhaha Soomaaliyeed ee runta ahaantii dhaxda u xidha dalkoodana jecel sababtoo ah hadaan aniga dalkayga jecleen maanta anigoo hooyo ah oo dhalinyaro ah oo wax bartay oo aqoonteedii leh wad garanaysaan caafimaadka wadankan markuu dadku caafimaadku barto يعني maxaan ku raahdaa ii sheeg uma baahna waxba iyo isaga isku filan qofku marka sidaas daraadeed anigoo caafimaad bartay oo heli kara oo shaqooyin fiican haysta oo ubadkayga haysta u jeedaan ayaan ka tagayaa oo u xiranayaa dhaxdayda inaan dalka iyo dadkayga Soomaaliyeed aan wax u qabto marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadka fariintan waxay ku socotaa ummadda aan codkooda ka rabo insha Allah waxaan rajaynayaa marka aan inii imaado hadii Ilaahay yiraahdo inaad dooran doontaan dad aqliga u saaxiib ah oo wax kala garanaya oo ummadda aad doorataan dib u xinigu celinaya waxna inii qaban kara diirnaxaya oo ummadda u diirnaxaya wadna leh inaad doorataan insha Allah ee ina dooran dad maxaan ku raahdaa ii sheeg waxba qaban karin hadhowtana inaga shaqaysanaya aanu inagama shaqaysanay shaqo hadaan rabo wadanka ugu opportunity-ga badan ayaan joogaa oo aan wax kasta awooda shaqo haday tahay wax walba haday tahay caafimaad haday tahay wax walba ayaan haysanaa marka hadana waxaan ka tagayaa wad argaranaysan wadankeena way ka wada nimid inagoo dhan marka kaasan dib ugu noqonaya sababtoo ah kaas ayaan ku dhashay anigu kaas aan la igu aasi doonaa insha Allah marka insha Allah waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dhamaantiin meel kasta adduunka ka joogtaan in aad istaageertaan ilaahayna waxaan ka baryaa ummadda Soomaaliyeed inay calooshooda isku xaaraan oo wadankeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo hagaajiyo gabdhaha Soomaaliyeedna waxa la yiri dawladda waxay ku leeyihiin 30% waxaan jeclahay insha Allah bal inaad nooga badisaan hadaad nasiineen 30 oo dhan bal gabdhaha Soomaaliyeed dib aad u eegtaan oo gabdhaha inta aqliga u saabixa iyo kuwa hoosaba inaad maxaan ku raad idinkoo dhan aad bal aad codkiina nasiisaan oo gabdhaha ayna yasin oo dhihin gabdhuhu waxba ma qaban karaan gabdhuhu waxay qaban karaan waxyaabo badan oo idinku aadan u jeedin gabdhuhu waa hooyo waa laf dhabarka hadayna gabdha ayna Soomaaliya maanta u soo bixin ama aanan maxaan ku raadaa wadanka qurbaha u soo aadin waxba ma noqoneen marka gabdhaha bal dib ha loo eego gabdhahana ayaana la yasin meel kasta gobol kasta ka yimaadeen gabdhuhu waa inaynu istaageernaa hadaynu nahay gabdhaha Soomaaliyeed caawa gabdhaha ayaa ku yar maxaan ku raadaa xafladeeda waana garan karaa in aroosyo badan oo maasha Allah Allah isku barakeeyay ay jiraan laakiin waxa weey gabdhaha Soomaaliyeed hadayna anagu isgarab qaban oo aan garabka isaga soo taagno oo inay support gareyn waxa weey rag waxba nooma ogola marka gabdhaha Soomaaliyeed waa inaad ka kacdaan hurdada oo aad mid kastaba mid kala taageertaa insha Allah
waxaan inii rajaynayaa guul ilaahayna waxaan ka baryayaa Soomaaliya inuu nabadeeyo barwaaqiyo bashbash anna ii soo duceeyo insha Allah sidaas iyo walaalayaal salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh